بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiinta ah what is a corporation waa maxay corporation waa qaab ka mid ah qaababka loo aasaaso ganacsiyada waana ganacsi ay leeyihiin dad kala duwan sidoo kalena ganacsiga iyo milkiilayaasha way kala madax bannaan yihiin waxaa jirta waxa loo yaqaano separate legal entity faa'iidada ay leedahay in la abuuro ganacsi noocan waa maxay kow helida maalgelinta oo sahlan sidoo kalena ilaha laga heli karo maalgelinta oo fara badan debt or equity financing faa'iidada labaad qaanta loo raacan karo milkiilayaasha ama khasaaraha soo wajihi karo oo ku siman intii shirkadda ay ku maalgashteen oo keli ah taana waxaa keentay milkiilayaasha iyo shirkadda oo kala madax bannaan dhanka kale faa'iido darrada ay leedahay waa sidan kow xeerarka ama shuruucda la rabo inay shirkaddu u hoggaansato oo fara badan ama adag labo milkiilayaasha shirkadda oo bixiya laba canshuur ah canshuurta koowaad waxaa laga qaadaa faa'iidada ay shirkadda samaysay waxaana loo yaqaanaa income taxation halka canshuurta labaad ay timaado marka faa'iidada saafiga ah ama net income-ka loo qaybiyo milkiilayaasha oo ay qaataan waxayna canshuurtaasi ku xiran tahay milkiilo waliba intii kaga soo aaday faa'iidada saafiga ah canshuurtaasna waxaa loo yaqaanaa dividend taxation mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo